وحاجرة وحندار باسو لغاكا بلالو قامنا باريلي حتى تاي ميديكاري يا هايبوزين قلقلشادا يلا وحاجرة وحندار باسو لغاكا بلالو قامنا باريلي حتى تاي ميديكاري يا هايبوزين قلقلشادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالك استوى جبتان يصير استوى مقصان با وحا عن نصيب ويراني دورشدي حالتي كدب إن مقري مقالبة التي سنو سيدي بلانتي اهد إن شروع ويدينو بل قوشة جارين يوليبا ميلاها ايكسين دونان وحاكلو حكو ويدين دونان هادي عردنو خطوطي رزارها عصب دالكا نوروي يوناس جار ستورة اي حكو ويدين دونان وحاكلو حكو ويدين دونان هادي عرد بقدماتين وحاكو ويدين دونان حلقة دورودة لصور لسي دوران iyo xilliga talada ay la wareegi doonaan maadaama uu asaga laftiisa ku celshay Jonas Garstore in waqti fiican ay haystaan oo ay dowlad ku dhisi karaan waa aftax midnimo oo barnaamijka daadinaya dhinaca farsamada iyo waliba barnaamij waxa soo dabriday xalwa cali gabdhuhu waxay u baanaan guriyo biyadi waxa guurka gabdhuhu waxay u baanaan guriyo biyadi waxa guurka karan maayo anigu inta ay dhiigan ku jirta muusikadaasi codka halaasiga lahaa fanaanka Axmed Cali Cigaal uu ku luqeynayo bal aan dhowr su'aalood oo degdeg ah aan weydiiyo haddii aan idmo shirwac oo isagu runtii xisbiga Arbas Party ka tirsan waliba dadka ugu fircoon ka mid ah oo aan u rajeynayno in sanadkan meesha isaga uu higsanayo inuu gaar haddii aan idmo shirwac soo dhawow idaacadda Voice of Oslo oo ballantay ahayd in markii aad guuleystaan aan soo wacno haddii laga badin lahaana korkaas wax soo wici lahayn laakiin maadaama guuleystay farxad kale weeye soo dhawow farxadaada iyo waliba waxaa loo raacaysaa khudbadii ra'iisul cusub ninka la yiraahdo Jonas Garstore bal hadaladii uu yiri iyo adiga dareenkaaga siduu yahay marka hore ku hormar soo dhawow waana farxad oo kula qabsanaya midnaba aad iyo aad baan ku salaamay saaxiib aad iyo aad baad mahadsantihiin Voice of Oslo anaga waxa weeye caadi ma xalay waxa weeye si fiican baan baashaalay waxa weeye waxa ka dhacay xaflad weyn ba ka dhacday wadanka oo dhan soo la socotaanba ciyaarta waa la ciyaaray gamekiina waa lagu kala baxay waxaan u maleynayaa si loo dhaliyay goolasho iyo mataqaan qaabka u dhasheen kama qarsoona marka alxamdulillah waxa weeye dawladdu waxa weeye isbedel baa dhacay dawlad cusub dhalatay qodbadii ra'iisul wasaaraha waad maqlayseen qaabkii mataqaan loo dhacay u hadleen waxa la sugayay ilaa iyo daqiiqada u dambeysay codkii ugu dambeeyay laga tirinayo oo la dhameystiray ka bacdina waxa weeye barnaamijka hore uu yeelay resultaatiga mataqaan ka soo baxay maxsuul ka soo baxay doorashada saasayna ku qanacday oo mataqaan inay ku guul dareysatay ay ogaatay anagana waxa weeye saasa guushin ugu raacday marka waxa weeye 3 iyo eber ba halkaas ka dhacay xisbiyadana soo socoto وقرت يوناس غارستور waxa uu ku celcelishay in waqti fiican u haysto dawlad fiican soo dhisanayo
isagoo markaasi la qaybsanhayo shirarka iyo kala duwan ula yeelanayo xisbiyada kala duwan ee markaasi u bixiyey plan A iyo plan B iyo plan B u kala bixiyey kuwa plan A-ga uu sheegay in isaga xisbigiisa Arbais Partiga ay wadajir ku wada samayn doonaan xagga dowladda xisbiga SB iyo SV marka xisbiyada kalena waxa uu sheegay in iyagana gacmo furan kusoo dhaweynayaan marka loo eego plan B marka khudbadiisii dheeraad intaa ka xasuustay bal noo soo kobo والله ولا وحوي مهمة هرت قوي وحوي إن تفهمتان حسب شغاله كريس هذا منطقة قرشة ومجرين ودولة سعودية أنا حوي صدق حسبي بعرفه إنه يسكت درسنا الدولة ده وحسب شغالها حسب سنترال بارتيا وأسبي لو يقانو يو سوشياليست نسر بارتيا أنا أسبي لو يقانو صدق حسبي وي معناها جول كوين أي وطن أو بلان عقد مغلس كاسوي marka kaaweeye hadda kana ku xisaabtamayno oo mataqaana la rabo in loo gundhigo ay wada hadlaan ay qorshe mataqaana midaysan oo dowladda maamulka lagu wareegayo ay mataqaana isla meel dhigaan kaaweeye muhiimadda ugu weyn oo mataqaana hadda uu xoog saarayo marka waxa weeye maalmahan ugu horeeyo waxa soconay wada hadal saddex geesooda oo mataqaana ay ka baaran degayaan qaabka dowladda mataqaana oo maareyn lahaayeen midda kale waxa weeye saddex xisbo kala gedisan weeye oo mataqaana ajendayaal kala gedisan wata marka waxa weeye in isugu yimaadaan meel dhexe oo dawladda mataqaana awoodeeda ay kula wareegaan plan B-gaas kalena waxa weeye waa sheeko kale weeye hadda mataqaana qorshaha waa mataqaana hadda looma gudbin laakiin waxa weeye just in case ay dhacdo inay shaqeyn waayo plan A laakiin plan A-ga muhiim ah marka in gacmo furan loo fidiyo xisbiyada rod iyo xisbigii kale ahaa MDG taas Soomaaliya plan B-ga ها runtii kaas waxa weeye laguma degdegayo dabcan hadda waxa weeye ajenda miiska saaran ma aha laakiin waxa hataa macquula in mataqaana sabta waxa weeye waxa la socota waxa weeye wali waxa lagu jira xayndaabka dhinaca bidixda ayaa lagu jira marka xayndaabka dhinaca bidixda waxa weeye mar walba in mataqaana la soo tashado la fiiriyo qaabka mataqaana dowladda loo maamulayo qaabka mataqaana had majority haystaan saddex xisbi mataqaana xisbiga shaqaalaha iyo SB iyo Central Party laakiin waxa weeye markaas way fiican tahay in la dhageysto xisbiyada ku jira dhinaca oo dhan oo qaabka mataqaana ay ku fakarayaan iyo waxyaabo la wada qabsan karo in mataqaana la dhageysto waa muhiim weeye waa gartay aad buu faraxsanaa Jonas Garsore laba jeer uu doorasho galayna waa laga guuleystay oo waxa ka guuleystay أنا سولبرغ هذا شحالة أدو فرحصنا أو ولبا وحكم وقتي في العون ديري حكم وقتي مركب بسنة هاي جوشان وقلمي مركب الله إيجا حزبي أربعة بارتي أو أتكلم جشتان أو دور صورنا وذا جشان مال بدنا شرك وذا قاتن إن جوشان وجارها هي مفلسن ها والله الحمد لله وحوي منه وحوي وحان لود دالين أو لود دين أو متقنا شلبها متقنا loo aasan lama gaaro marka waxa weeye muhiimaddu waxa weeye inaad fahamtaan waxa weeye waa guul weyn oo soo hoyatay xisbiga kaliya ma aha waddanka dhan sababta waxa weeye xisbigan hoyraha midigta 8 sano waddanka xukumayay qaabka iyo siyaasadda ay ku wadeen waa lagu kala daragsantiin marka waxa weeye farxad weyn bay noo ahayd anaga farxad weyn bay noo ahayd xisbiganaga farxad weyn bay ahayd xisbiga guuleystay oo mataqaana coalition ku wadanahay asagana waxay u ahayd dabcan farxad weyn sababta waxa weeye waa nin intaas oo dhan sugaya weeye mataqaana inuu mataqaana soo gaaro halkaas waqti badan geliyay runtii waxa weeye waa nin mataqaana u bisil inuu barnaamij wadanka noqdo waa nin soo noqday shaqooyin fara badan soo qabtay oo wasiirka arrimaha dibadda hore ahaa wuxuu ahaa reer cross soo qabtay la qaybta casoonoor uu soo qabtay wuxuu soo noqday staffka prime minister ku soo noqday xilligii Jens Stoltenberg marka waxa weeye nin soo jabay weeye oo mataqaana bisil weeye ninkan waa gartay waxa kale wax ka weydiin rabay dowladda la soo dhisay imise qaadanaysan wallahi anaga kulli waxaan saan u fahmay anaga waxa weeye dhuxul shidan madaxna gama saara waqti fiican baan haysanaa marka waxa weeye prime ministerkii hore waxa weeye waa inuu geeyo afshan spray faal dhow macnaha weeye waraaq mataqaana silsilaada inuu geeyo boqorka uu geeyo weeye laga aqbalo waa laga aqbalay shaasan qiyaasiyo maanta geysay markaas weeye boqorku inuu u yeero story u yeero
uu ka codsado inuu dowlad soo dhiso marka waa process dawli oo la maro weeye oo mataqaanaa waddankan uu leeyahay goorma xilka la wareegaysaa كل واحد نقصها واحد نقص ما ندي هذا لما قوين لكن واحد قياسي يا هذا أنت اللي قلت أنت بشان كهذا كلوري قاعد عيا خاصة صح waxa uu ku celcelinayay hadallo aad muhiim u ah oo dadka Soomaaliyeed inay ka bartaan waxa uu sheegay wuxuu yiri hadaan anaga xisbiyada waddanka Norway siyaasadooda anaga wuxuu yiri anaga dhaxdeen isma necbin waxaan dhaxdeen naga dhaxaysa buu yiri wada shaqeyn iyo in la xushmeeyo taa marka maxay ka baran karaan dadka kale Soomaaliyeed xisbiyada kale waddankii markii loo eegay markii meelaha kale loo eego maxay ka baran karaan hadallada noocaas uu ku hadlay Jonas Gahr Store walaal waxa weeye meeshan waxa weeye afka ayaa laga wada hadlaa aqalga iyo karaamada aad mataqaana waddanka ku maamulaysaa miiska la soo saara meeshan qor loo iskuma qaato qabiil ma laha 4.5 ma laha waa ka badanahay ma laha meeshan waxa weeye know how wal rabaa karti wal rabaa miiska saarayso mataqaana waddankaaga ku hormarinayso isnacabin ma jirto hadda waxa weeye prime ministerka markuu uu aqoonsaday inuu mataqaana guul daraystay kii hore wuxuu u aqoonsaday aan Solberg inay tahay siyaasiyad rugcadaa ah oo mataqaana xariifad ah oo mataqaana lagu xisaabtami karo waa run aan Solberg waxa weeye qof culus weeye waa heavyweight boxer weeye waxa weeye feeryahan culus weeye marka in qofku kala u aqoonsato kartidiisa iyo wax qabadkiisa waa muhiim weeye mataqaana waa oo mataqaana oo national salaasiyo waa muhiim waxaan loo baahan Soomaalidu inay ka bartaan waxa weeye qofka Soomaaliga waxa laga yaabaa inuu qofka kale intuu nool yahay uusan u sheegin kartidiisa iyo karaamadiisa laakiin marka uu dhinto inuu dhaho Allah hebel muxuu rigeedii ahaa muxuu qaban jiray waba dhintay dharcad baa loo xiray Soomaaliya laakiin qofku intuu nool yahay baa la rabaa in loo mahad celiyo mataqaana kartidiisa mataqaana lagu amaano lagu abaalmariyo xataa la tuso inuu shacabkiisa mataqaana meel fiican oo boos fiican uga jiro muhiim way taas waa gartay waxa kale arkaynay maxaa la sheeg in markii dambana ay wada hadallo oo waxaad oo sida caadiga ah lagu qaato gudaha baarlamaanka dalka Norway markii ay ra'iisul cusub soo doorto su'aalaha weydiin waxa kamid ahayd xisbigii FRB waxa arkay dhaxa farta ka qeynay oo rafanahay arkay isaga waa bariiqday والله حسبت بنبرنتي بريقضي مركا لو فيريو سو حسبي waxa isku dayay Soomaalida inuu qafaasho oo mataqaan laamigi istaagay maqaayadihii Soomaalida tagay masaajidii ayuu cagacad soo galay islaamihii mataqaan meeshii bariis ka gadan jireen dukaamada ajnabiga hirdo istaagay KRF yaa yiraahdaa am xaare u galeen meel wax isku dayeen Soomaalida inay dhahaan mataqaan wax kasta idii qabanayno beena mataqaan isku diin baan aaminsanay muddo kala diin ma haysato halaagi balay ku rideen laakiin KRF waxa ku dhaca waxa weeye 11 xildhibaan baa baarlamaanka u fadhiyay doorashada inta hal dar soo gal shalay maanta waxa ka soo xaadiray 3 qof baa ka soo xaadiray maana waxay ku jiraan under spargrensa baa inaysan soo galin baarlamaanka waxa weeye laba nooc lagu soo galaa mid waxa weeye toos baa loo soo galaa qofka mid waxa weeye saddex ban baa loo soo galaa marka saddex ban kuma helin dad kuma helin soo waxa weeye hadaad afar ka yartahay boqolkiiba ma helaysid dad ban oo tira ma helaysid baarlamaankaagu mataqaana baarlamaankaagu kor u kaco hadda waxa weeye waxay ku jiraan saddex iyo wax ka sareeyaan maana waxa weeye eber dhibic labo hadday heli lahaayeen waxa weeye waa saddex jibaar milaayeen dadku u soo galay baarlamaanka laakiin hadda waxa weeye waxay ku jiraan spargrensa ay ku jiraan marka waxa weeye dhulkay galeen KRF baa waxa ku soo haray FRB ayana waxa weeye 12 bay haystaan naagta waxa weeye haysata oo Soomaalida dhibtay umada dhibtay nala ka hayay mataqaan 8 sano nala ka hayay waxa weeye 12 bay haystaan xisbi ma haystaan hooyada waa ka soo baxeen anaga awalba mataqaan xoolaha way silsilada daaqa jirin marka farta dhexda ka qalinaysa marka waxa weeye intii mataqaan umada dhibaysayba ilaahay xargu gooy waxay ku celcelinaysaa wax badan baa baarlamaanka la keen doonaa oo aan u fadhinaa oo markaasi dood badan ka dhici doonta maadaama aan nahnay dhinaca opposition ama ka soo horjeeda dawladda waxaasna waxay dhici kartaa maadaama la weydiiyey bunkii qaadi lahaayeen la weydiiyey ay ku adkaysatay in sida ahaanta qabteen ay tahay wax fiican inay qabteen ay ku adkaysanaysay waxay tiri haddii ay bedelaanna xaggan ku suganaa baarlamaanka ayay dhehaysay xalayto oo ay dhaweey way caqajugeynaysay xisbiyada bariiqda waxaa ka mid ahaa xisbiga KRF waa bariiqday marka
حتى وحاله ودي مدح وصل كوارف إن حلكوا كتجايو وحاول يحلك ساس وكتجايو مركا نقولتها هذه أفرتان السنة واحد بدن أي قبطان حلفظان هذا لنا بدح إن أفر سنة خلا أي كوبول سكران horta waxa weeye siyaasaddu waxa laga rabaa waa delivering ma fahamto waa waxa weeye waa inaad soo celiso waxa shacabku ku doonto hadda waxa u jeedaa xisbiyada isbedelka hadda dhacay waa isbedel weyn weeye oo shacabka keensaday maaha xisbiga kaliya uu keensaday macnaha waxa weeye shacabkii baa codkooda dhiibtay oo meesha direction-ka la aadayo in la bedelo ayaga go'aankaas ayaga iskale oo meesha soo saaray mid kale xisbiyada hadda saddexda oo raba inay waddanka qabsadaan waxa weeye majority baa haystaan macnaha baarlamaanka waxaan ku haysanaa 89 xildhibaan baa haysanaa waddanka waxaa la iska rabaa 85 macnaha waxa weeye afar xildhibaan baa siyaada oo mataqaanaa oo above dheer raay meeshana la ka rabay marka waxa weeye qof qayliye iyo xisbi qayliye iyo qof caga juuleey wax macna ma sameynayso waxa weeye so far ad majority haysato waxa weeye dhib ma jiro afarta sano soo socotana haddii insha allahu projectiga naga aan rabno inaan ku maamulno afarta sano soo socda waddanka uu guul noqdo oo dhaqaalihii iyo shaqadii iyo mataqaanada isdhexgalkii cusurnimadii loola dagaalamo dhaqaalaha kor u kaca dadka ajnabiga shaqada loo furo hadday dhacdo afar sano maahan 12 sano fadhinayna meel uma socno anaga waa gartay xiriir noocee idinka dhexeeya adiga shakhsi ahaantaada oo ah shir wacdal mar soomaalida kale xisbiyada kale ku jira xiriir baa idinka dhexeeya ma tihiin sida iska warhayo oo iswaca ma tihiin oo markaasi ama meelaha doodaha isku arka ha ana waxa weeye soomaalida siyaasadda ku jirta Norway ma aha soomaalida oo Soomaaliya joogta ma aha oo 4.5 ku xisaabtanta anu 4.5 malihin walaalaan nahay waa isku mahadcelinaa waa isku taaniyeynaa messengeran isku diraa hoos baan iska mataqaan iska warqabnaa waxa weeye malihin magaalo iyo gobol iyo malihin waxa weeye far iyo suul baan nahay marka qof kasta Soomaalida oo ku jira siyaasadda waxa weeye waa sixir inaan caadi ah naga dhaxay Facebook saaxiib ku nahay telefoonada kala haysanaa waxa weeye waa iska warqabnaa waxaan iska warqabnaa dad waxa wada dhashaan walaalaha Soomaaliya aan nahay waddankaana ku noolahay dana guud baa naga dhaxay oo shacabkeena waxbarashada dhalinyaradeena caruurteena hooyooyinkeena Soomaalinimadeena ayaa naga dhaxaya marka waxa weeye horumarkoodu waa horumarkayguna waa horumarkooda waa gartay ma jira dad aan macnaha qof aan maryan kaliya aan ahayn oo qof kala dumar ah muslim ah ama afrikaan u xirta ama qaarad kale ka timid oo baarlamaanka Norway gelis ma jirta sanadkan xisbiga ka socoto marka laga reebo maryan wallahi uma jeedo runtii dad waa jiraan dad badan oo candidate ah way jiraan oo boosas kala gedsan ku jira listaha laakiin hadda wax ciidan ka arkayo oo soo galayso dadka mataqaana ka yimid wadamada islaamka ka yimid waa maryam aan uga jeedaa waana hambaliye aan caadi ahayn baan u jeediyay maanta maryam insha Allah marka waxa weeye aad baan mar labaad ugu faraxsanahay aad baan ugu mahadcelinayaa dadka walaalaha oo codka siiyay maryam ama Norwegian ha ahaadaan ama Soomaali ha ahaadaan qof kasta waan loo baahan yahay sababtoo waxa weeye way u qalantaa gabar walaasheena oo mataqaana waddankan ka timid ayadoo yar inta ku barbaadhay kalaamadii iyo dhaqankii iyo suugaanteena iyo diinteena iyo caadadeena wadata caadi maaha marka waxa weeye wax weyn oo lagu farxo weeye mid kale dad badan oo skillka Maryan oo kale leh ama aniga iyo ayadaba naga fiican ayaa ka buuxa Soomaalida oo dhalinyarada soo koraya marka waxa weeye this is start weeye marka waxa weeye Maryan hadda waxa weeye waxay furaysaa baab ah in gabdho badan iyo wiilal badan oo Soomaaliyeed ay fariistaan baarlamaanka Norway insha Allah أنا أقول هذا ما قاعد يعدى voice of Oslo فيصل شنويل ولبا حلو علي يعني عفتح محمد من نمو وحنا بلبلا هو أمرنا أو أدرنا مريم حسين أو يدو حزب كذا مال في عنقاري للرجال هي سنة كان أفرد سنة إن مركزي برلمان كفريسته أيوة مركزي محيد بترد دونت حزب كذا أسفه ومركزي نقول دونت كبر صوماليات أو برلمان كنرويج شيء همبلي على النهاية همبلي أنا والله يا ما قاعد يعدى فويس وصله يوليبا أنا بقوة تصدق ما قاعد شنويل ما قاعد إرادة بحي شنو حتى أسكيد رصدو ما دام هذا يهرب فديو السجن وهمبلي إلى عدى عوض فدينه وحكوا دير بدور سؤال وذا كابن هذا بحكوا قشصا
والله أنا waxay qorshaysan ani waxa weeye guushan aan gaarnay waxa weeye qayb baan ka nahay alxamdulilah waxyaabo badan baa noo qorshaysan oo hadda waxa weeyaan laga hordhici karin dowladdan waxaan isku daynaa insha allah inay mataqaanaa xoogga ay saarto Soomaali nabadeynteeda horena waa idinkugu sheegay waxa qarsoon maaha waan ka shaqaynaynaa waan daba gelaynaa maaha wax hadala waxa weeye ballanoo nala ka qaaday insha allahu tacaala marka waddankeennii wuxuu u baahan yahay saacidaad buu u baahan yahay nabadeyn buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay waxyaabaha halka haddan ka arkayna qaabka wax loo doorto institutionadu say yihiin qoro isku dhiibka mataqaanaa siyaasaddu siday tahay ismarxabeyntii walaalnimada qaabka mataqaanaa laisku dhiibo siyaasaddu siday tahay macnaa waxa weeye intaan halka markaan joogno wax ka barano Yurub marka waxa weeye waxa halkan ka import gareyna waa inay noqoto wax Soomaaliya anfacaya waxbarashadii siyaasaddii ismaamulkii iyo wax walba marka waxa weeye aniga qorshe meesha ugu jira waxa weeye in insha Allah waan ka shaqeeyo gogoshaas la dhigayo Soomaaliyeed aan ka shaqeeyo insha Allah waan daba galo horna waan kugu sheegay ballanteeni baa ahay taasna waxa weeye waxa insha Allah waa aniga hawl ii taalo oo rabo inaan mataqaanaa lugta aan saaro insha Allah maalmaha soo socda iyo isbuucii soo socda insha Allah ma jiraan dad u soo hambalyeeyay Jonas Gaar Store waxaa arkaya madaxweyne Farmaajo oo Twitterka ku soo qoray isagoo u hambalyeynaya Jonas Gaar Store oo markaasi sheegay in gooshi u gaaray uu ku faraxsan yahay uuna ka shaqeyn doono in isaga guushiisa ay noqon doonto in guul dad Soomaali nool joogan iyo kuwa Soomaaliya yani la isku xiriir ka wada dhexeyn doono labada dowladda ay markaasi ay cilaaqaadku si fiican doono ayuu soo qoray warbixin noocaas ah ma jiraan dad kale oo madax ah oo saas oo kale u soo hambalyeeyay Jonas Gaar Store ها أنا تا فرماتشو ما بعرف بعضها هذا كان مقلايا وحاول بس ومهم وصبت حوي نروي الصومالي وحوي وحفظ من قد حيا الصومال واحد هذا أنا بدان هيا أنا بيات هيسا مركو أسكو بهنا بدا كليا بيلو كرسن ما كرسن يسوع هذا هداد بيا هيسو بدا هيسن ده عندهم عنيسيد مركو حوي وده كان حوي وحفظ من قد حيا خيرات بدن بانان هاي technology badan uu haysto baan ka faa'iideysan karaa marka waxa weeye anaga dad badan oo Soomaaliya halka naga degan oo ilaa 50,000 gaaraya naga degan marka waxa weeye xiriirka waddanka Norway iyo Soomaaliya inuu fiicnaado oo mataqaanaa aqoonta iyo karaamada halkan ay ku hayaan ka dhoofin waddankeena aan geyno oo mataqaanaa u isticmaalo waa muhiim weeye waddankeena dawlad ka soo timaado iyo mataqaanaa xisbi ka soo yimaada inaan ku xirro waddankan waa muhiim baa inaga noo tahay waa tahay kaasi waxa uu ahaa shirwac oo qadka runtii khidmay waana u mahadcelinaynaa maadaama su'aali u dambeysay tahay anoo ku hadlaya magaca idaacadda Voice of Oslo dhammaanteen waxaan hambalyo u jeedinaynaa Jonas Gaar Store oo runtii aan isleeyahay sanadkan shaqo badan ayuu qabtay shirwac waa uu soo laabtay sida arkayo shirwac waxaan arkay inaad soo laabatay soo dhawow mar kale laba su'aal baa igu qabsan mid waxa weeye bal haddaa xasuustid mid ka mid ah dadkii u soo hambalyeeyey haddaad magacyo ka xasuustid su-aasha kalena waxa weeye dadka Norwejiga ah xaladta wasaaraha Jonas Gaar Store wuxuu ku celcelinayay dadka isaga dadkii ku dooranba in loo wasinaan doono xagga shaqada iyo weliba isdhexgalka iyo weliba in yani waddanka kor loo qaado xagga waxbarashadiisa iyo weliba waxa kale uu sheegay in qofka reer horta ka shaqeynaya in isaga lisa uu helataa waxyaalo dheeraad ah oo waxbarasho inuu helo ayuu ku celinayay waxa kale uu sheegay in waddanka banaankiisa wax badan uu ka qaban doono cilaaqaadka uu aad u sii xoojin doono ayuu sheegay oo waddanka arrimahaas ayuu ka hadlay bal haddii ay jiraan dad u soo hambalyeeyey halkan dambase soo arta adiga midna waa run weeye waxa weeye ninkan anagu dawladda waxa weeye xisbigan uu qorshu leeyahay Jonas Gaar Store waxa weeye plan buu dawladda u hayaa macnaha u dejistay haddaan ku hormaro yaa u soo hambalyeeyey runtii inta anigoo hadalkiisa aan ka maqlay waxa weeye Jens Stoltenberg oo ah General Secretary NATO uu u soo hambalyeeyey waxaan kaloo ها iyo madaxweynaha Airbus Party
هاي برامج الكهرة iyo xogayaha guud ee naatuna way hadda jira صح secretary ادي waxa kaloo ii saambeeyay yiri Hillary Clinton ayadana way saambaliyay صح Jonas Bavkis ka maqlaayay midda kale waxa weeye wadankan waxa weeye xisbiga guuleystay macnaha waxa weeye kama badin hal xisbi ama laba xisbi macnaha waxa weeye markaad guuleysato kursi ku fariisato u shaqaado waxaad barnaamij u tahay kaad ka guuleysatay iyo ka mintaqana ka kula guuleysay marka waxa weeye waa muhiim inta la xaqiijiyo waxa weeye prime minister uma nihin ama prime minister kanagu uma aha hal xisbi oo la yiraahdo ururka shaqaalaha uma aha waxa weeye waa Norway oo dhan kuwii doortay kuwan dooran prime minister buu yahay kuwa ka soo horjeeda prime minister buu yahay kuwa codkiisa aan siin hatta prime minister buu yahay marka waxa weeye xilliga doorashada iyo qor isku tuurka iyo mataqana canaanta iyo mataqana brochuriyaasha kala gedisan iyo kalarada waa dhamaadeen xilligaas waxa hadda waxa lagu jiraa xilligii jadwalka qorshaha dejinta iyo delivering macnaha waxaad ballan qaaday inaad soo celiso oo shacabka mataqana u adeegto taaba hadda la galaya aad iyo aad laba kun iyo 17 ayaa waxaan kula kulmay festival ka dhaca xaafadan Morton Street ka dhaca sandarka xaafada reegaalisa ah ayaa uu ka soo qayb galay Jonas Garistore asagoo qaasi ahaa madaxa ugu sareeya madaxa ugu sareeya xisbiga Arbais Partiga meesha ku kulanay sawir baan wada galnay marka intaanan sawirka wada galnay waxa ugu yeeray faramtiisa minister aad buu ila yaabay wuxuu yiri wuxuu tahay inaan reesaar noqonayo waxaan dhahay yes reesaar waddanka ka noqonaysaa sidaan arkayo haddaad mar kale doorashada dhacdo waa sii saadaalay laba kun iyo 17 ka sii saadaalay in uu reesaar noqonayo marka hatta mar dhowr jeer waxaan ku soo qoray meelaha YouTube-ka iyo maxaa la ayraade Snapchat-ki waxaan ku soo qoray maxaa la Facebook-ka in aan ka sii hor dhacno inuu reesaaraha dalka Norway uu noqdo ba Jonas Garistore dad badan ila yaabeen oo hatta qaar kamid ah comment ay ka bixiyeen markaan ka saaray kadib aan arkay in uu guuleystay oo ay talab waxa uga saartayna laakiin sababta ugu saarno waxay ahayd arba kale ahayd ugu dambeyntii hal mid kursiga joog adigu arbac roor soo garsaa may ma soo galayo laakiin waxa weeye muhiimaddu waxa weeye dawladdii in mataqaana la soo dhiso ay iskuulkooda ku soo istaagto dadka baarlamaanka soo galay backup-kan soo siiyo aan ka qayb qaato mataqaana xisbiga isbedelkan weyn oo ka dhacay Norway aan qayb weyn aan ku leeyahay taas baa muhiim ah taana waxa weeye meesha ku jirta taa waa marka waxaan rabaa inaan ugu adeego ummadeena ugu loobi gareeyo waddankeennii mataqaana dadkan halkan jooga oo kale mataqaana dhiban ama ha noqoto sharciyada kala noqdaan ama ha noqdaan mataqaana waxyaabaha Soomaalida dhibkeena haysta noqdaan waxa weeye kanaalo badan baa ku furmaaya oo mataqaana wasaaradihii iyo maamulkii mataqaana kala xiriiri kartaa si dalahaaga mataqaana shacabkeena ummadeena mataqaana u adeegto dabcan ama aqo marka waxaan noqonaysaa xubin sharafeed oo xisbiga Arbais Partiga ah oo guul fiican soo heeyay xagga doorashooyinka ayaa noqonaysaa xisbi waa ku jira Soomaaliya xisbi ayaa noqonaysaa xubin sharafeed macnaha oo yani oo la fiican baa wadanka wada intii doorashada socotay ها ما ادري حسب حاوي كليا انا حسب مدلم كليا ما هي حسب حق حبين وين وحن كايد وحن عافات كان قود عافات قود بان كجرا ودنكا gobolada koonfureed waxaan fadhiyaa xildhibaan waxaan ahay laga soo doorto golaha deegaanka marka siyaasadda kama marin dabcan soo maahan aad iyo aad waxa weeye waa laag waxa weeye football markaad ciyaarayso hal qofkii waxa weeye kubadda ma qaato dadka uma jiro gool ma dhaliyo waxa weeye waxaan nahay koox marka waxa weeye qof walba meel buu ka ciyaara xarif ku yahay aad iyo aad marka adiga afkar aad ku ahayd si dawladda u soo guulaysato gool buu u dhalisay waa ku hambalyeynaya sharaf bay tahay aad baan u faraxsanahay runtii guusha aad gaarteen markaas waxaan ku farxaa qof Soomaali ah oo guul gaaray aad baan u farxaa adiga oo shirwac ah iyo waliba Maryan Xuseen oo iyadoo guul ka sii weyn sii gaartay oo aan rajaynayo iyadoo baarlamaanka dhex fadhido inaan ka arko labada TV TV-ga dawladda NRK iyo waliba TV-ga private-ka TV2 inaan ka arkay rajayna insha Allah sida rajayna mustaqbalka ayaan rabaa insha Allah waana waxyaalaha muddo sugahay weeye adigana sharaf bay tahay inaan idaacadda Voice of Oslo ka wareystay aad baa masantahay Voice of Oslo idaacadaada way gacan furug soo dhawow habeen maalin idinka
hal mid baan idin farayaa reer Oslo walaash waxa weeye waxaan ka codsanayaa walaashan Maryan inaad xaflad weyn oo soo dhaweyna oo mataqaana abaalmarina inaad u sameysaan waxa weeye gabadhii ugu horeysay oo Soomaaliyeed oo soo gashay baarlamaanka Norway oo mataqaana BMA weeye marka inaad xaflad weyn oo loo dhan yahay oo aan 4.5 lahayn oo aan lahayn mataqaana qof dheer iyo qof gaaban lahayn oo loo kala harin inaad u sameysaan ayaa rabaa inaan telefishinka fiirsado insha Allah ta'ala oo kulligiin aad u mataqaana oo gacmaha u laabataan insha Allah ta'ala insha Allah isbuuci kadibna waxaan rabtaa insha Allah Maryan Xuseen oo booqasho ku timid idaacadda Voice of Oslo qaybteeda afka Norwegiga ayaan ku wareysan doonaa insha Allah waana soo dhaweynaynaa haddaan jaanis weelnana qaybtan Voice of Oslo qaybta Soomaaliyana waan wareysanaa oo dhowr su'aal baan wax ku weydiin doonaa haddii Alla insha Allah haddaan jaanis weelna weeye aad iyo aad baan ku salaamahayaa kolley waxaan filahayaa xalayto wax badan baad duceysay soo maaha aad iyo aad anigana halkan waxaa ii saaran hees la dhahaya aamiin allahayo ما شاء الله ما شاء الله adiga oo xisbigaas ah iyo aniga oo xisbiga u codeeyay ilaah og yani og aan bal heestaasi aamin allah ayaan ku soo gowgeynaa aad baan ku salaamay waqtiga qaaliga ah oo waliba sabar far badan aad samaysay maanta aniga og marka aad iyo aad baan kaaga hayaa heestaasi ayaan ku soo gowgeynayaa oo ku luqaya fanaanka la foole aamin allah ayo sidaas nabaday aad baan ما شاء الله Thank you.